Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta kusoo dhawaada channelka Caqli Taj. Muuqaalkan waxaan rabaa maanta inaan isla dhisno marka NFT car preview 1 anigoo isticmaali doona marka HTML iyo CSS. Daawasho wanaagsan. Waxaad soo furtaa marka editorkaaga. Halkan waxaa inoo samaysan marka imageska aan u isticmaali lahayn projectigan. Intana waxaa inoo samaysan faylkii aan ku qori lahayn marka HTML-ka iyo waxa kaloo inoo samaysan faylka kale aan ugu talagalno marka inaan CSS-ka ku qorno. Ugu horreyn waxaad soo furtaa marka HTML-ka meeshaad ugu talagashay inaad ku qortid. Marka ugu horreysa waxaan sameynaynaa qaybta HTML-ka, kadib waxaan u gudbaynaa marka inaan sameyno styling-kii iyo CSS-kii. Lana ciwaankiisu waa NFT preview card component. Kadib waxaan sameynaynaa wax loo yaqaano section. Sectionka marka waxaan dhexgelinayaa marka div oo aan ugu magac daray marka car. Waxaad tirahdaa car. Cardka marka waxaan soo dhexgelinayaa image. Intaanan image ka soo gelinin waxaan sii sameynayaa marka another div kale oo aan ugu magac daray marka top car. Kadib waxaan soo gelinayaa marka image. Waxaan sameynayaa marka title-ka. Waxaan kaloo sameynayaa description-ka oo lahay. Waxaan sameynayaa another div kale. Divkaas waxaan soo gelin doonaa marka laba section ama laba div kale oo ku kala jiraan marka date-ki iyo price-ka. Kadib marka halkan waxaan leeyahay groupka koowaad waxaa loo yaqaanaa price. Price-ka waxaa ku jira marka image. Image-ka waxaa waaye logadu waa Ethereum. Waa lacagihii oo crypto mid ka mid ah. Waxaan inta kasoo kobiyeysanaya marka qiimaha ee wado. Waxaan leeyahay span. Qiimaha ayaa dhexgeliyay. Waxaan sameysaa marka another div kale oo aan ugu magac daray marka clock. Waxaan gelinayaa marka span-ki iyo icon-kaas. Waxaad tirahdaa image clock. Hadda marka waxaan sameynayaa calaamadan oo aad ka aragtaan halkan waa HR. Kadib waxaan ku xijinayaa marka qaybtan. Waxaa dhahdaa marka div oo class-keedu yahay avatar. Waxaa ku jira marka image. Kadib waxaan sameynayaa qaybtan. Halkan waxaad ugu jeedaa marka in ay ku kala duwan yihiin text color-ka. Waxaan sameynaynaa marka in aan ku kala duwno anagana. Waxaad imaadaa marka halkan waxaa leeyahay H4. waxaad dhigtaa qoraalka. Markaa ku paste garaysid qaybta ugu horeysa marka waxaad ku xirtaa span si aan hadhowdii colorka aan ku kala duwno marka. Inta ugu muhiimsaneed oo HTML-ka laga qabanayo marka waan ka qabanay. Hadda waxaa dhiman marka styling. Intaan style-ka ama CSS-ka aan u gudbin marka waxaan ku tusayaa sida uu u yaalo marka website-ka. Waxaan sameeyay oo dhan wuxuu u muuqdaa marka sida tan. Hadda ayaan waxaa bilaabi doonaa marka inaan edit gareeno oo aan qurxino. Waxaad tagtaa marka CSS-ka. Ugu horreyn waxaa soo import garaystay fonts-ka
fontiga aan isticmaali lahay font familyga waa kana waxaan ka keenay marka Google Font halkan waxa igu samaysan marka in aan ka bixiyo waxyaabihii defaultiga ahay oo browser ka soo akhrinayo oo wato sida marginkii oo kale iyo paddingkii box size-kan waxa ka dhigay border box and then halkan waxa igu samaysan wax loo yaqaan rootkaas waxa igu jira marka kalarada aan isticmaali lahay intaan project aan wado and then qaybtan kale waa badiga waaye badiga marka waxaan u sii sameeyay background colorkiisu oo yahay marka colorkan okay and then waxa dhaha marka any image oo meesha la soo geliyay marka widthkiisa 100% ha ahaado inta marka halkan aan soo import gareynayaa marka CSS-kayga linkigiisa style okay markii aan soo import gareeyay marka waxyaabo badan ayaa isbedelay imageska waxay noqdeen marka kuwa aad u weyn background-kana waad aragtaan wuxuu qaatay colorkii aan siiyey waad aragtaan okay hadda ayaan bilaabi doonaa marka qurxintii horeen waxaad samaysaa sectionka ka bilow section waxaad tiraahdaa widthkiisu waxaa waaye 96% waxaan leeyahay margin auto isla marka waad aragtaan 96% ayaa dhahay wuxuu sameeyay marka space ayuu dhinacaha ka soo qaatay centerkana wuu joogaa waxaan rabaa marka inuu marka containerka markaan kaarka widthka aan u sameeyo inuu centerka imaado sidee ku dareemi kartaa marka before intaanan sameynin waa inaan siin sameeyaa marka kaarka iyo size-kiisa okay card widthkiisu waxaa waaye 350 pixel waxaan u sameynayaa marka background colorkiisu uu yahay colorkan tirada ka bg okay intaas ayaan kaarka marka ku sameeyaa waan u soo laaban doonaa goolka aan ka lahay waxay ahayd inaan kaarka ku hormaro in aan ku tuso marka display flexiga wuxuu sameynayo hadda halkan waxa waaye qaybta kaarka waaye qaybtan kalena waxa waaye inta space oo 300 pixel ka soo harta waaye marka waxaan sameynayaa fiiri waxaan leeyahay ugu horreyn display flex markaa dhaho justify content center markaa dhaho fiiri waad ujeedaan kaarka wuxuu tagay marka centerka ayuu tagay hadday wuxuu ku ekaay meeshan laakiin haddeertaan wuxuu joogaa center of page-ku jooga waxaan rabaa marka inaan sameeyo marka wax loo yaqaano align item inaan center ka dhigo align item haddii center aan dhaho wax effect badan ma arkaysid kaarka ayaa aad u weyn marka aan yareeyo align itemkana waa brobeyn doonaa waa ku tusayaa marka saameynta oo leeyahay asaga wuxuu sameeyaa marka in uu vertically center oo ugu dhigo hadda horizontal center wuu u yahay laakiin vertical inuu center yahay ma dareemaysid okay waxaa kaloo lagaga baahan yahay marka align item marka isticmaalaysid in aad seegtid marka shayga waxa ku dhex jiro size-ka oo dhan yahay tusaale ahaan sectionka waa inaan sheegaa marka cabirka ama dhirirkiisa inta uu yahay waxaa leeyahay 100 v height ka dhiga si marka waxyaabaha u qurux badnaadaan oo wax walba meeshay marayaan si aan ula socono waxaan ku xijinayaa marka imageska iyo size-yadooda inaan siiyo waxaan bilaabaa marka image-kan lacagta sheegayo inaan qiimihiisa siiyo ama size-kiisa intuu yahay inaan sheego waa image waaye wuxuu ku jira marka group wuxuu ka mid ahaa price markaa dhaho waxaan leedahay marka image width of waxaa u rabaa inuu ahaado 18 isla marka waad ujeedaa marka waxaa isbedelay ethereumka loogadeeda inuu yaraaday okay isla same size waxaan u rabaa marka kalooga inuu qaato wax badan ma ka bedelaysid inta soo koobiyeyso waxaad tiraahdaa marka meeshaan lagu kala duw meesha price ka dhahday waxaa ka dhigtaa marka clock okay asagana waad ujeedaan oo soo yaraaday
weli waxaan sii bedelayaa marka facekan waxaan rabaa inaan ka dhigo ama imageka oo qofka inaan yareeyo oo sizekiisa saxda aan siiyo. isagana waxaad tirahdaa card wuxuu kamid ahaay card footer, wuxuu kasii ahaay avatar image. waxaan leeyahay isagana size waxaan u rabaa width of 40 pixel, heightkiisana waxay iga dhigtaa 40 pixel. asagana waa yaraad. haddii aan marka align item usoo noqdo, waxaan sameynayaa marka inaan align itemka aan ka bixiyo 100 v height aan ka bixiyo. 100 v height waa ka bixiyey, align itemna waa ka bixiyey. waxaad arki kartaa marka cardka inuu jiro marka top, laakiin horizontally wuxuu u joogaa center. hadda waxaan rabaa marka inuu verticallyna center u imaado. waxaan sameysaa marka align item center. weli ma tagi. wuxuu u tagi la'yaa waxaa waaye ma cadda marka sectionka widthkiisa sectionka heightkiisa ma caddo. waxaan caddeyn doonaa marka heightka uu leeyahay sectionka. heightka wuxuu yahay marka 100 v height. waad aragtaan. isla marka wuxuu imaanayaa marka centerka. waxaan rajeynayaa marka inaad fahanteen justify content iyo align item. aan gudaha usii galno marka sectionka waxaad tagtaa card. waxaan u baahanahay barin. waxaan leedahay gaarsiiye warrem border radius. waxaan rabaa inuu gaaro 16 pixel ama warrem waa dhihi karta xataa. waxaan kaloo u baahanahay shadow. waxaad tirahdaa box shadow waa 8 pixel. spreadka waa 16 pixel. waxaa isticmaashaa RGBA 0.4 ilaa xataa. waxaan saas ku sameeyey marka cardki iyo waxuu lahay style ah. waxaan usoo gudbayaa marka imagekan oo weyn inaan edit gareeyo. waxaad tirahdaa halkan card wuxuu kasii mid ahaay marka top card. waxaan ka bedelayaa oo keliya border radius inuu ahaado marka 1 rem. waxaan u malaynaa marka inaan qalday. wuxuu kasii jiraa marka image. waad u jeedaa marka isla marka uu isbedelay. marka inuu ku badan yahay umalaysaa. waxaan ka dhigtaa halkan 8. waxaan u gudbayaa marka in aan ka shaqeyno titleka. waxaan u gudbayaa marka titleka inaan wax ka bedelo. gaar h1 colorkiisu waa margin top. waxaad tirahdaa 10 pixel. sidoo kale waxaan rabaa paragraphka. waxaad dhacdaa marka paragraph isagana waxaan siinayaa colorkan. waad aragtaan. waxaan siinayaa marka margin rim ah left and right 0 pixel. waxaan kaloo rabaa inaan u sameeyo marka font size 18 pixel. waxaad tagtaan marka qaybtaan. isagana waxaad tirahdaa waa card. qaybta price ayaan ka bilaabayaa marka group price. markaan dhaho waxaan u baahanahay inaan dhaho ku qore display flex align item center. item center markaan dhaho waxaad tirahdaa gap 0.8 rem. way kala fogaadeen waad aragtaa. waxaad tagtaa marka halkan isla intaan soo koobiyeyso raacsiisaa span. colorkiisu waa cyan. waad aragtaan. font weight bold. waxaad imaadaa marka halkan qaybta kalooga. labadooda marka waxaa mideyso dif loo yaqaano group. waxaad sameysaa halkan tag. waxaad tirahdaa display flex justify content space between. waad u jeedaa midna intuu joogaa mid kalena waa kaa. marka halkan marka waxaa ka maqan kaloogi xogta ee wadi. waxay inoo soo kobiyeysaa marka xogta. waxaad imaadaa halkan. waxaan leeyahay span xogta dhig marka. waad aragtaa marka hadda xogtii ayaa taalo.
isla intaan oo kale ayaan rabaa inaan ku sameeyo marka soo koobiyeyso intaas waxaa bedeshaa halkan clock ka dhig marka aad ujeedaan waa ku apply garaysma isla markii gaabka wuu kala sigta xataa intaas ayaa u dhexeyso align itemkoodana waa center waxaan sameynayaa marka inaan spankiisana aan ka bedelo colorka timaw span color soft blue okay waad aragtaan waxaad usoo gudubtaa marka HR-ka inaan wax ka bedelo HR ne waxaan u baahanahay horta margin oo gaaraya marka 1.5 frame qaybta left and right kana waxaan rabaa 0 pixel waxaa dhihi karaa xataa inaan dhaho 0 ma u baahna marka inaan unit raacsiyo xataa layer border none waad ujeedaan line-ka dhan xariiqmada dhan waa qarsan waxaan leeyahay background color waxaa siisaa colorkan wuxuu u baahan yahay marka height oo 1 pixel ah waxaad tagtaa marka qaybta ugu dambeysa ee footerka isla sidoo kale ma u baahna marka content oo isku mid ah inaan maanta oo dhan aan soo celceliyo inta tag marka waxaad tagtaa qaybta kore waxaan leeyahay marka waa car wuxuu ka sii yahay marka car footer isla markii waxaa ku samaysma marka display flux contentigana center noqdo gaabkana intaan oo u dhexeysmo waxaad imaadaa marka avatarka meeshaan ka saxaaye waxaa leedahay border u sameeye borderkiisu waa 1 pixel oo solid ah colorka waa soft blue okay waad aragtaan laakiin borderka waa border afar gees ah waxaan u sameynaynaa border radius oo gaaraya marka 50 pixel okay hadda waad ujeedaa marka okay waxaan bedelaynaa marka qoraalkan stylekiisa waxaad imaadaa halka imaam marka H4 laakiin reference waa inaan u sameeyo car wuxuu kusii dhex jiraa marka car footer waa H4 colorkeeda waa white intaan soo kobiyeyso marka waxaad timaadaa halkan waxaad raacsiisaa marka span colorkiisu uu yahay soft blue waad aragtaan marka design-ka waan dhameeyey ugu dambeyn marka kaarka wuxuu u muuqdaa sida tan waxaan dareemayaa marka wax yar inaa kala duway okay waxaa ku laabataa marka koodka kaarka sizekiisa ayaan wax ka bedelayaa waxaan geynayaa ilaa 370 pixel paddingkana waxaan ka dhigayaa 1.5 midka hore aan sameeyey ayaa sidaas ahay marka hadda waad aragtaan wax farqiga uma dhexeeya muuqaalkeena maanta intaas ayuu inoogu egyahay waad ku mahadsantahay daawashadaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu